Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada daawadayaal meel kasta adduunka dacaladiisa ka joogtaan. Waa walaashin idibsan oo idin salaamaysa ku soo dhawaada malawax si qurux badan loo sameeyay oo boorish laga sameeyay. Maasha Allah waxay igu soo xujeysatay laba hablood oo igu qaaliya. Maasha Allah waa tan abay jawaabtiini. Waxa weeye umu manaal waa ta jawaabtaada saaxiib. Waxaan ku si fiican baan uga soo baxay iyo umu wanaagsan waa tan jawaabtaadii qaali aad baad ugu mahadsantahay sida iigu soo xijeysateen aniguna saan uga soo baxay aniguna ayaan kusii xijeysanaya kafeeye janaal waa tana ha lagu yaaco ha lasoo booqdo kafeeye janaal jawaabta waanu kaa sugaynaa kusoo dhawaada saan u sameeyey halkaa waxaa inoo yaala boorash halkaasna waxa weeye 2 koob biyo ah halkaas waa yaroo milixa 2 xabo oo kuna baynu haysanaa marka insha Allah hadda waynu bilaabaynaa caagaas ayaan ku shubi doonaa wax oo dhan waxaan ku soo shiidi doonaa mashiinka usha ah marka isla daawasho wanaagsan maasha Allah waa tanaa waxaan ku waan soo shiiday saasay ku soo baxday maasha Allah qurux anigu malqacadan ma jecli oo kuma dubi karo furka masaasada ayaan ku dubi doonaa insha Allah daawaheena dabku inoo saaran yahay marka kaasana uu ku dubi aqaana kaasa ii fudud tan way yar tahay marka daawaheena waynu kulada maasha Allah waynu bilaabi doonaa hadda waa sin xigeen ku guri lahayn halka inoo yaala maasha Allah halkan waa subagan soo dhalaaliyo weeyaan marka intaas aynu ka sameyn doonaa boorashka ayaaba fiicanba boorashka marka soo shiiday wuxuu noqday daqiiq maasha Allah hadda waan ku shubay balse noqoto waynu isla eegi doonaa anigu weligii kamaana sameyn malawax iyo maxaa sheegay boorash kaligiiyahay bal maanta hablahan waxay nagu soo challenge gareysatay markii ugu horeysay walaashin qamar binti amiir waynu salaameynaa salaan qaaliyana hawada u soo marinaynaa walaashin qaali marka hablahaas aan igu soo challenge gareystay aniguna waxaan ku sii challenge gareystay kafeeye janaal waxaan ku wari waa tana ka soo jawaab saaxiib jawaabta aad halkan baan kaaga salaamayaa marka saan u sameeyana halkan ayaad ku arki doontaa insha Allah waynu suganaynaa hadda marka bal inuu xagga hoose ka casaaday aynu rajeynaynaa insha Allah waan yara daboolayaa baan yara daboolaynaa insha Allah waan ka qaadi doonaa marka xagga kale ayaan u rogayaa insha Allah subaga yar baan dusha kaga yaacinaynaa hadda marka waan rogayaa maasha Allah saas uu soo baxay mara wax qurux badan ayaa halka kaaga soo baxaya oo caafimaad qaba marka waxaan ku boorashku aad buu fiican yahay anigu kana baan hadda ka bacdi aan waxaan ku wari aan mar dambe waxaan ku mara wixii aan ka sameyn jiray daqiiqda kan ayaan ku bedelay saas ayuu ku soo baxay qurux maasha Allah asal weeyaan insha Allah malab ayaan anigu malabkaasan haystaa kaasaan dusha ka soo marmarin doonaa kulli anigu malabkaasan jeclahay ku cunaa marka malabkaasan halkaasan ku soo diyaarin doonaa malabkaygaas ayaan soo marmarin doonaa halkaasan ku soo diyaarin doonaa saan u soo hagaajiyo waynu isla arkaynaa asxaabey marka insha Allah guul baan idin rajeynayaa asxaabteeda qaaliga waan salaamayaa haddaad hareen noola joogto waad ku mahadsantahay commentiga noo soo qor haddaad nagu cusub tahay soo dhawow waan ku leenahay commentigaaga iyo leegtaada iyo subscribe-taada intaba aad baan ugu baahanahay aad salaan qaaliyan hawadan ku soo marinaynaa daawadayaashayda qaaliga ah markasta idinka ayaa i dhiirigeliya idinka la'aantii waa abaar marka hadda malabka ayaan marmarin doonaa malabka ayaan sidaas kulligood kusoo sameyn doonaa kana badin maayee malabka in yaroo iska normaal ah ayaan kusoo sameyn doonaa inaan saa dusha kaga soo waxeeyo anigu kii la tuujinaya ma haysta kaas ayaan isticmaalaa badanaa marka malqacadeydaas ayaan kusoo sameynayaa saas ayaan usoo wada laalaabaya haddii la yidhaahdo marka waynu isku soo noqonaynaa markaan saa usoo laalaabay aan soo habeeyo insha Allah soo kusoo baxana waynu isla daawanaynaa saaxiibayaal waa kana saas ayuu kusoo baxay qurux maasha Allah furuudada dhakada ayaan ka soo saaray anigu furuudada inta aan jeclahay baan maxaa sheegay aan soo saaray lindana ba meesha idinka muuqata liin dhanaanta anigu furuudada markaan jarjaro
dusha ayaan kaga darsadaa, waan iska jeclahay. Marka qofka hadaan xiiseyneynin isagaan xiiseyneynin, laakiin anigu liin dhanaanta aad iyo aad bay agteyda waxaan ku qaali uga tahay, waayo wax kastaan cunayo waan ku daraa. saas ayay kusoo baxday maasha Allah. waxaan ku waa tanaa jawaabtiina hablihii qaaliga ahaa ee igu soo xujeystay inaan soo sameeyo malawaxa. waa tanaa jawaabtiina walaalahayga qaaliga haddaan idinka raagana iga raali noqda. aad iyo aad baan idin salaamayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.